وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون أبورك آدم عليه السلام إلهي مركو دوني ملائكة أيو إلهي ورقل يوحوش يقول كيري خليف أيان يالنا يابا إلهي خليف معناه وحي علمدكم معنيان ومد أحكامت إلهي أوضانا يا أدونك دوشي هذا كم موجنا يويان وخلقي عن كفكرين شهواتك النفتي سي كفكرايا ماركتاني دونست الربي كفكرايا وأبور كدوان ماركتاني أبورك كلا إلهي أبوري حيوانك شهواتك كفكران سيدي أقودن لهايين لكن بني آدم كوحي إلهي وكي لي خليفة الله معناه وحويان وخلق خلقك لكدوان وكسوعا وأراد دوشي إنت أي جوغان وحيكون نغميان سيدا ربي قد ورالك يا هيبة ونغميان سيدا نفس دودو أي دون تهابا يراتين مرنا يالي مايان مركا بني آدم كاسا إلهي نغدق بشر وكري إلهي أنو كادق حيوانات ككالي أدقنا مدل من بني آدم إن لغادق أنقنا ما دلبنه إلهي عز وجل إساق إنو دورتين نغنا بني آدم ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا إلهي القرآن كي سواكي كلها بني آدم كأنك ماموسني وكراميني وبدأ يبرق ونسخرني بإلهي يري خلق فربضان ونأبورنا أياك أيان كفضلي وأرزاقات تيدا أقوى ونأكسني أقوى معانا بني آدم كاسيه بإلهي يري خلائقda badda ku nool bariga ma iman karaan kuwa bariga joogana badda ma gali karaan laakiin bani aadamku labadaba uu ka faa'iideysanaya baddiina uu ka faa'iideysanaya waa ka maraakiibta dul marinaya waa ka maraakiibta quusta sameystay lu'aali jawaahirta iyo dhaymanka iyo khayraadka badda gunteeda ku jira waa ka la soo baxaya barigana marka horeba bani aadamka ilaahay baa ku abuuro uu ku abuurnaa jawgiina qofka bani aadamku uu ka faa'iideysto ilaahay baa mariyay jawga joogu waa samadan korkeena weeyaan waanaka diyaaradaha iyo dayax gacmeedada u isticmaalayna adeegsanayna waxa soo dhan waa tasqiir ilaahay awalam yaraw ila at-tayr fawqahum saafatin wa yaqbid ma yumsikuhunna illa ar-rahman innahu bikulli shay'in basir may eegana ba ilaahay shimbirta duulaysa dushooda ee aanan soo dhacaynin ayaa haya inay soo dhacdo ilaahay baa u diidan oo ilaahay baa xajinaya shimbirtu waxa weeyaan waa tayr diyaaradana الطائر بل الطائرة تدول يسبا ليلادا أيضا تضرب بقولوا قف ديارadaha qaarkood ilaa 500 qof ay saaran yihiin ay jawga maaragtaan saacadadan maalmadan ay soconaysaa mana soo dhacaysa ka wada waa ilaahay ka hayana waa ilaahay haday saacadoodu dadka diyaaradda saaran ay dhamaatana ilaahay azza wa jalla halkaas ay ilaahay ka soo tuuraya huwa alladhi yusayyirukum fil barri wal bahri badda iyo bariga kana socodsiinaya nagu haya waa ilaahay azza wa jalla marka bini aadanka tasqiir ilaahay baa u sakhiray koonka mooyaane awoodina ku aan leenahay koonka kuma dul joogna ilaahay baa noo sakhiray markaas la yiri wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun shay kastana laba nooc ayaan ka yeelay baa ilaahay yiri saadu waan towdaan maaragtaan waxaad ugu qaadataan aadam calayhi salaam markii la abuuray ilaahay kaligii buu abuuray وأبو البشر ويان ما استقر قلبه قلبه سوى سكناني وايي لأن فردي سيبت حمرك لغا سوق هذا حوال لغا أبوري أي نبي آدم وحصلي بين آدم علماء آدم وحو حصلي مركو زوجة دي سي حواء إلهي أبوري أي حصلي وهلي بالليدي وإلا أنت هرود النبي آدم وحو دريم أيي كلينما أيو دريم أيي ماشا وحن كفهمينا rag kaliyoodna adduunyada kuma noolaan karayaan haween kaliyana adduunka ku noolaan kari maayaan rag iyo haweenku isku baahan yihiin oo ilaahay baa isku dheelitiray wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun bal waliba bini aadamku kaliya ma labiya dhidig waxa la xayawaanka ilaahay abuuray oo dhan labiya dhidig ayay leeyihiin iska daa xayawaanka bal jamaadaadka geedaha dhirta ee maaratan midhaha soo saara ayaa ayaka laftigooda labiya dhidig bay leeyihiin لينتا برتقال كان عنا لبي ديدق بيلادهاي
timirtuna lab iyo dhidig bay leedahay cambada babayda la yiraahdo lab iyo dhidig bay leedahay ilaahay baa ugu talagalay wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun cirki ilaahay baa abuuray dhulkiina ilaahay baa abuuray habeenkii ilaahay baa abuuray maalintana ilaahay baa abuuray noloshana ilaahay baa kugu daaqay dhimashadana ilaahay baa kugu xukumay faqiirka ilaahay baa abuuray qanigana ilaahay baa abuuray adcada ilaahay baa abuuray dayaxa ilaahay baa abuuray wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn intaas oo dhanba waxay soo wada galayaan shay kasto adduunka yaala baa ilaahay laba nooc baan ka dhignay baa ilaahay yiri ilaahay cid aan ahayn oo sidaa sameyn kartaa ma jirtaa dawaa ma jirta weeyaan habeenna waad u baahan tahay uu ku siiyey maalinna waad u baahan tahay ilaahay isaga ku siiyey kuleel waad u baahan tahay isaga ku siiyey qabow waad u baahan tahay ilaahay baa ku siiyey bini aadanka si xaalad kaliya kuma noolaan karaya baa la yiri cadcad uun haday haysato uun ma noolaan karayo waa inuu cadaad helaa waa inuu habeenna helaa waa inuu mar socdaa marna waa inuu fadhiistaa mar waa inuu shaqeeyaa mar waa inuu nastaa waa inuu seexdaa mar waa inuu wax cunaa marna waa inuu wax cabaa mar waa inuu dhalinyaro ahaada marna waa inuu xaas yeeshaa mar waa inuu dhashaa marna waa inuu dhintaa mar waa inuu yaraadaa marna waa inuu gaboobaa ilaahay nolosha adduunka isaga sida ugu talagalay ilaahay baa sida nolosha ugu talagalay oo isku dheeli tiray waja'alna layla libaasan ba ilaahay habeenkii baa lagu keenay maxaa laga yeelay libaasan huwis baa lagaga dhigay huwis kulkii baa mugdi noqonaya saadu nasato u seexato waja'alna an-nahara ma'asha maalintii waxa laga dhigay iftiin saadu foofsad arsaaqada ilaahay xalaasha aad u doondoonato ya ayuha alladhina aamanu kuluu min at-tayyibati wa'malu salihan inni bima ta'maluna alim ba ilaahay ya ayuha alladhina aamanu kuwa ilaahay nabiga rumeeyo kuluu min at-tayyibati ba ilaahay xalaasha cuna arsaaqada adduunyada ilaahay isaga dhigay inna xalaal buu ka yeelay inna ilaahay xaraam buu ka yeelay inna waa lagu xalaaleeyay inna waa laga xarimay waliba ilaahay waxa uu ku leeyahay waxaad cuntaan baa ilaahay leeyahay xalaasha cuna arsaaqada tiyada xalaasha raadsada oo xalaasha doodoonta wa'malu salihan de markaana amal wanaagsan ka shaqeeya baa ilaahay yiri xalaasha iyo amalka wanaagsan cilaaqa ka dhaxaysa xaaraanta iyo amalka xunna cilaaqa ka dhaxaysa ogow ma dhici karto qofku inuu xalaalna soo cuno xumaanna inuu sameeyo waa waxaan dhici kareynin mana dhici kareyso qofku inuu xaaraan ka shaqeeyo masaajidkana safka hore uu kugula tukado taasna ma dhacayso ogow hadaad xaaraan cuntid waxaad ogaataa macaasida un baad xaggeeda u dhaqaaqi hadaad xalaal cuntid oo qof xalaal marada aad cuntid dadka qofka ugu cibaado fiican baad noqon ittaqil maxaarima takuna acbada an-nas abu nabi alayhi salaatu wasalaam wixii ilaahay ka xarimay oo dhan ka dheerow hadaad doonto inaad ahaato dadka ninka ugu cibaado wanaagsan qofka ugu cibaado wanaagsan ee ugu cibaado fiican inaad noqoto hadaad doonaysid xalaal mirad noqo ee wax waliba qaatay wax waliba cunaha noqon xalaasha iyo amalka wanaagsan bay xiriir ka dhaxayay ogow halka xaaraanta iyo ismiga xumaantana cilaaq ay ka dhaxayso marka maalintii iftiin baa lagaaga dhigay si markaad marataan arsaaqada xalaasha aad u doondoonato iftiin habeenka nasa laga yiri naso ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون بإلهي ومن رحمته إلهي نحريستي سوحا كمذا جعل لكم الليل لتسكنوا فيه هبينك إلهي وحوية لسادون ستان مالنتنا محال الله يا لساد أرزاقات إلهي أضد دونتان ولتبتغوا من فضله فضلكيس أرزاقات إنكم ما حيسان أرزاقات غفك لنكم ما حيو waxaad adigu aad u baahnayda ilaahay makhluuqa kuuguma dhiibin waxle waxaan inaku aan u baahanahay ilaahay isaga inoo haya markaas ilaahay naga doonaya inaan isaga xiriir fiican la yeelano bas wallahu antum tamlikuna khaza'ina rahmat rabbi idan la amsaktum khashyata al-infaq wa kana al-insanu qatura ba ilaahay qul waxaad ku tiraahdaa muhammadow nimanka mushrikiinta kafarada waxaad ku tiraahdaa hadii naxariista ilaahay lin milkiisiin lahaa gaajaad umada u leyn lahaydeen ku dhaba ilaahay yiri
bini aadamku sida uu leeyahay waxba agtaada ku yaraanayo oo wixii way yaraanayaan wax ma bixisayna khalqiga gaajaad u leyn lahaydeen ku dhaba ilaahay yidhi lidaalika ilaahay waa kariim waana casiiz cid kale waxbay nooguma dhiibine ilaahay caza wajalla arsaaqada isaga hayo waa kay nagu leh litabtaguu min fadlihi habeenkana waxaa habeen looga yeela saad u nasataan maalinkana waxaa iftiinka looga yeela saad u fooftaan ood arsaaqada xalaasha ilaahay uu inii xalaaleeyey arlada la dhigay aad u doontaan baa ilaahay u raadsataan walacallakum tashkuruun labada aayadood aayatul leyl iyo aayatul nahaar markaad aragtaanna waxaad mudan tihiin baa ilaahay leeyahay markaa inaad noqotaan kuwa shukrinaya oo rabbigood u mahadnaqaaya inaad noqotiin baa la doonayaa baa ilaahay yidhi maadaama ilaahay uu yidhi arsaaqadii anigaa haya oo fadligayga ayaad cunaysaan huwa aladii jacala lakum alarda daluulan famshuu fii manaakibiha wakuluu min risqihi ilaahay waa kee weeyaan waa ka dhulka maaragtaanay inii sakhiray weeyaan ilaahay waa ka dhulka inii abuuray weeyaan uu inii dulleeyo uu inii sakhiray waad faqanaysaan oo waxaad doontaan baad kala soo baxaysaan bidir baad ku beeranaysaan oo roobku markuu yimaadana ilaahay baa inii soo saaraya waxaan yacni thimaarta midhaha la cuno ee arlada ka soo baxana ilaahay isaga inoo soo saaraya waana fadligiisi weeyaan waa fadliga ilaahay wa ilayhi nushuur xagga ilaahayna hadhow tol waa laynii soo celin doonaayo ogaada arsaaqadii ilaahay baa inoo hayo dhulka ilaahay baa inoo geliyey marka arsaaqada maadaama dhulka lagu geliyey dhulka inaad kala soo baxdana ilaahay baa ku faraya waxauna ilaahay ku leeyahay waa fadligayga waxaad cunaysaan waa arsaaqadaydi waxaad cunaysaan anaa arsaaqada inii dhigay baa ilaahay leeyahay dhulka haddaad dhulkaaga joogtana arsaaqadee kuu qornayd unbaad cuni lahayd haddaad dhulkan kale aad timidayna wixii kuu qornaa unbaa lagu soo xawile ogow dhoofka aad dooftana arsaaqadu kuugu beeri mayso jaamacadaha dhiganaysana arsaaqad kuu kordhini maayaan 20 saaca haddaad tagsiir saarnaatana arsaaqada kuma beeraysee arsaaqada waa inta ilaahay kuu qadari weeyaan alaa fattaqullaha buu nabigu yidhi alaa fattaqullaha waajmiluu fi talabi walaa yaxmilannakum istibdaa'u risqi an tatlubuu bimacaasi illaahi fainahu laa yudraku maa cinda allahi ilaa bitaacatihi baa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam alaa war hooyahay baa nebigu leeyahay yaa macshara almuslimiin dhagihiina fura buu ilaahay iyo nebi maxamed ina leeyahay oo ilaahayni abuuray ka baqo ka cabsada oo qaabka arsaaqada aad u doondoonaysaan buu nebigu leeyahay qurxiya bimacnaa arsaaqada xalaal iyo xaaraanba labada ilaahay baa dhigay xalaashana waa lagu dhigay waa lagu caddeeyey raaco doondoon wixii xaaraanana waa lagu sheegay ka dheero oo iska ilaali arsaaqada inaga daahda baa ilaahay ayuu nebigu leeyahay yaysan nagu kallifin inaad arsaaqada ku raadisaan macaasi ilaahay agtiisa khayrka iyo barakaadka yaalla macaasi laguma gaadho daacadda ilaahay baa barakaadka lagu gaadhayo ogow habeenkii wuxuu ilaahay ka dhigay mugdi saad u nasatid u karaa ilaahay adduunka inuu ka dhigo habeen isdabajooga ayaa maalinkuu keeni lahaa maalin isdabajooga hadduu ka dhigan ayaa habeenku siin karaa barwaaqo xaggiisa hadday kaaga timaadana barwaaqada ilaahay kuu qadaray ayaa kaa celin karo kaa horjoogsan kara qul afara'aytum maa tadcuuna min duuni illaahi in araadanii allahu bidurin hal hunna kaashifaatu durihi aw araadanii biraxmatin hal hunna mumsikaatu raxmatihi qul xasbiya allahu calayhi yatawakkalu lmutawakkiluun qul waxaad ku tidhaahdaa baa nebiga lagu yidhi calayhi salaatu wasalaam waxaad ku tidhaahdaa ood u sheegtaa bal waxaad iga warantaan haddii ilaahay caza wajalla uu xaggiisa iniga keena dhib oo mashaakil iyo masiibo iyo dhibaato xagga alle layniga qadaro ayaa dhibaatada inaga dulqaadi kara oon isaga ahayn bini aadamku waa daciif kulayl iska qaadi kari maayo oo qabowga iska qaadi kari maayo oo xanuun iska qaadi kari maayo oo faqriga iska qaadi kari maayo oo gabowga iska celin kari maayo oo geerida iska mancin kari maayo haddii xagga ilaahay naxariis iyo maaragtaane barwaaqo iyo nabadgelyo ilaahay uu kaaga soo qadarana cid wanaagga ilaahay kuu qadara kaa celin kartaana ma jirta ogow qul waxaad tidhaahdaa xasbiya allaahu ilaahay baa igu filan calayhi yatawakkalu lmutawakkiluun ilaahay talada ha u dhiibteen kuwa ilaahay tala saaranaya ama kuwa raadinaya ciday talada u dhiibtaan ka talada in loo dhiibto mutaystay waa ilaahay caza wajalla ka baryada mutaystay waa ilaahay caza wajalla ka in laga baqa mutaystay waa ilaahay caza wajalla maxaa yeele waxa kaloo dhan waa makhluuqna laa yastaxiquuna in loo tadallulo oo dhulka laysku dhigo makhluuqu umana qalmaan umana haboono qofka muslimka ogow tadallul watadaruc watamalluq
intaaba ilaahay baa caza wajalla iska leh mid dhulka la isku dhigaa waa ilaahay mid la isku duleeyaa waa ilaahay mid la baryo oo maaragtaan gacmaha la hoos dhigtaa oo la baryaa waa ilaahay bari markaa baryada ilaahayna baro dadku zamankan sida bani aadanka loo baryo inay baranayaan sidii ilaahay loo baryayba dadku maanta baran kari maayaan maanta inay bartaana u diyaar maaha nabiyullaahi muxamed calayhi salaatu wasalaam saxaabadiisa wuxuu baray sida dadka ilaahay u baryaan buu rasuulku baray dadka sida dadku ay ilaahay ugu xidhmaan buu nebigu baray ilaahay sidee loogu xidhmaa sida ilaahay loo jeclaaduu nebigu saxaabadiisa uu baray sida ilaahay loo raaligeliya ayuu baray saxaabadiisa maaha rag oo keliya xataa haweenkii asmaa binta abibakr sidiiq radiallaahu canhuma ayaa ninkeediibaa safar buu aaday markaa saxaydii uga tegay baa ka dhammaatay deedna waxaa dhacday markaa xaamilana way ahayd dariskeyguna wuxuu ahaa gabadh yahuudeed baa markaa daris la ahayd gabadh yahuudiyadii markaa neefay qalatay dhariga carfigii dhariga ayaa markaa gurigeeda u soo galay deedna baahidii ay u qabtay cunnada ayaa ku biirto ku korodhay waxay tihi waan u soo wareego waxaan ku yidhi qori daba isii dab baan rabaa inaan shitee qori daba ii dhiibtay tidhi hadafygu qoriga ma ahayna waxaan islahaa kolkay ku aragta ha istidhaahda gabadhan daris baa tihi ninkeediina waa ka maqan yahe adiguna waa adiga neef qashee bal neefkan wax uga dar ilamay fahmin qori daba unbay ii dhiibtay tidhi haddana waa ku soo noqda waxaan ku yidhi qorigii dabkii waa iga baktiyey bal dab labaad ii dhiib haddana qori kale ii dhiibtay haddana mar saddexaad ilamay fahmin haddana dabkii unbay ii dhiibtay tidhi mar saddexaad deedna markaan gurigayga iskaga soo noqday ayaan ilaahay baryoon idhi ilaahayow adigaa baahidayda ii dabooli kare ilaahu baahidaa baan qabaayo ilaahu ii dabool saxaydiina waa iga go'day aqalka wax dhari la saarana ma yaallaan yaa rabbi baahidayda adigaa ii dabooli kare baahidayda ii dabool ninkii guriga iska lahaayee neefka loo qalay baa gurigiisii soo galay xaaskiisii buu ku yidhi hal dakhala calaykum axad cid inii soo gashay ma jirtaa maanta markaasay tidhi haa gabadhan carabiyadee dariska noo timido dabbay i weydiisatoo dabkii waan siiyey markaa ninkii uu dhaarto ilaahay intuu ku dhaartay buu yidhi maaragtaane neefka aad ii qashay wallaahi inaan waxba ka cunin buu yidhi ilaa gabadha oo aad wax uga dartid mooyaane innagu waxaa laga yaabaa dad muslimiina oo ilaahay ku xidhan oo aabbayaashood jadka jad ilaahay ay baryi jireen baan ka soo jeednaa walaakiin dadka muslimiintu maanta qaaradan markay u soo gudbeen qof walba uu waddankan uu isku dhiibaayey waxaa laga yaabaa waxa uu sheegtay inay runhayn ay run u badnayn inuu sheegay iyaka waxaa la baray inay baahidooda ay qarsadaan inay baahidooda ilaahay u sheegtaan inay ilaahay talada u dhiibtaan waxaa la baray ixfad illaaha yaxfadka ilaahay ilaali adigana ilaahay baa ku ilaalin ixfad illaaha tajidhu tajaahaka ilaahay amarkiisa ilaali hal allii halkaad u kacdaba adigana maaragtaan ilaahay baa ku ilaalin doona idaa sa'alta fas'al illaaha baa la baray haddaad weydiisan ilaahay weydiiso waida stacanta fastacin billaah haddaad kaalmo u baahatana ilaahay keligii kaalmayso waclam waxaad ogaataa anna alummata ummaddu low ijtamacat haddadeeskugu kaa timaado calaa an yanfacuuka inay wax ku taraan kuma tari karaan baa lagu yidhi ilaa wuxuu ilaahay horey kugu sii qadaro meel ku yaallay mooyaane hadday dhib ku idhahdeen dhib u geystana kuma dhibi karaan buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam ilaa dhib horey lagugu qadaray mooyaane ruficat alaqlaamu wajafat isuxuf qalinkiina waa la kor yeelay buu nebigu yidhi khadkiina warqadda waa ku engegay buu rasuulku xadiiskaasi waa min qawaacid alislaam tiirasha diinta islaamku ay ku taagan tahay waa tiir ka mida weeyaan xadiiskaasi bal baabulcaqiida oo dhan buu xadiiskaasi ayuu soo koobay waxa uu nebi maxamed uu ka bilaabay uu leeyahay nin dhallinyaro ah oo ghulaama cabdulaahi ibnu cabbaas buu nebigu hadalkaa uu dhiibay uu ku leeyahay ilaahay ilaali buu ku yidhi innii ucallimuka kalimaad ayaan ku barayaa waxaad ogaataa buu nebigu leeyahay ilaahay haddaad ilaalisid ilaahay adigana asagaa ku ilaalin bimacnaa ilaahay ilaali waxa weeyaan ilaahay adigu ma ilaalin kartid asagaa ku ilaalinaye laakiin amarka ilaahay haddaad ilaalisid meeshaad doonta joogo ilaahay isagaa ku ilaalin haddaad ilaahay amarkiisa aad ilaalisidna meel allihii meeshaad u kacda ilaahay ku ka maqan mahee waa ku arkaayo ku maqlaayo weeyaan haddaad baridana ilaahay baryadaada uu ajiibiyo uu ku siin waxaad doonaysid haddaad kaalmo weydiistan ilaahay waa kuu kaalmaynayaa meelna ilaahay kama maqno wallaahu bimaa tacmaluuna basiir wa huwa macakum aynamaa kuntum
والله بما تعملون بصير إلهي ومعنا ويان حلقات جوكتان باتقب الليل ومعنا بمعنى مع الأنبياء عليهم السلام مع النصرة والكلاب يري ومع العامة بالعلم والإحاطة نبي إلهي مركا وكليه معنا نحي وحي كدغنتahay أنا إني غرغارايا أنا إني إلالينا يويان عامدنا marka ilaahay uu leeyahay waan arkay waan maciinaanahay waxay ka dhigan tahay waxaad sameeynaysan oo dhan waan arkayaa waxaad ku hadlaysaan waan maqlayaa waxay ka qarsooma ma jira ba ilaahay leeyahay marka amarka ilaahay hadduu qofku ilaaliyo isagana ilaahay ba ilaalin adiga ilaahay baa ku ilaalin ubadkaaga ilaahay baa ku ilaalin dhaqankaaga ilaahay baa ku ilaalin diintaada ilaahay baa ku ilaalin cirkan iyo dhulka ilaahay baa iska leh meesha tagtay haddaad ilaahay aad ku caabudo waxaad ogaataa ilaahay waa macaaga ogow Muuse alayhi salaam iyo Haaruun markii Fircoon loo diray maxay yiraahdeen qaala rabbana innana nakhafu an yafruta alayna aw an yadgha qaala la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara ilaahay Muuse alayhi salaam iyo Nabi Haaruun waxa loo diray Fircoon taaghiya ninkii zamanka ugu qooqa badnaaba loo diray waliba waa nin ay yaqaanaan tabiicad xumidiisa dadka ma dhageystay baa leeyahay isaga baaba la dhageystaa وانا نين كبير بدنو موسى عليه السلام انتو سن إيمانبا عبسي اوكا قبا ويل ريبان إسرائيل ودلان دونو نبي نقوني دونا او دولة دي سبابئيني دونا بي سحراد ووشيغين وحاو فرعون كو دقاقي المكسو ريبان إسرائيل اي دلان با هدو ويل يهينا انو قورعو هدا قبرت هينا انو ديستو نولايستو موسى يساقو كعبسي قبا ايو تدباتن كن او الموت او ريبان إسرائيل ابو فرعون برتمر يو قورعي بالي موسى إيمان تضباطا كن وويل ريبان إسرائيل برتمرية ولكن إلهي وحو قدري موسى عليه السلام إن نبي موسى انتهي دشو ولبا الله أمره لهذا الصندوق كرد بدا كتور فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إلهي بقرآنك كل يقول الجيش كيف فرعون بحرقها أيا صندوق انتهي هلان بيفران ilma yaro iska ciyaaraya ayaa uga soo baxay markaas qasrigii Fircoon bay la galeen waxay leeyihiin ilmihii uu boqorku raadinay annaka helay leeyihiin sidaas uu markaa nabi Muuse qasriga Fircoon ku soo galay Fircoon markaa uu yiri waa isagiyo dil uu yirina وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون زوجتي فرعون باتري وارها دلين ilmaha yar sabiga muxuu galabsaday bay ku tiri anagii aduguba bila ubad baanaho ilmu noo noqonaya oo indhaheena ayaa ku qaboojisanaynayo waaba ku indha qabowsanayna markaas uu kani aniga ii noqon maayo mid indhahaygu igu qaboobaane oo ilma ii noqon maayo adiga ha ku noqdo iska qaada buu ku yiri sidaas uu nabi Muuse qasriga Fircoon ku soo galay Fircoon waxa ka goonay Muuse inuu adduunka uu san iman ilaahayna waxa ka go'an Muuse intuu dhasho inuu aqalka Fircoon waliba 30 sano damo ku sii barbaaro أمرك يا سكله موسى الذي رباه فرعون مرسل موسى فرعون كورينا إلهي وحو كدغ نبي الرسول أبو كدغ يو نبي موسى عليه السلام ما دام قصرك فرعون صد سنة وكسو كوري كي با ليد حدنا أرادو دينتي دعوة الرسالة قارسي وأمرك إلا بدودو إليهين وحان كبقينا إنه سن وحبابا نغدغيسن نغو قوقو مركا وان كبر بدنو لا دغيستو اونه نين wax dhageystaba ma aha bay ku yiraahdeen إلهي وأقول إنني معكما إن قال لا تخافا هبقينها عبسنين بلغو يدين عبسنين إلهي وأقول أنا معنا أسمع وأرى وأنا نركا وأنا المغلى فرعون عليه اللعنة فعل كون نقول لك أنا وأنا أركيا هذا الكون نقول لنا وأنا مغلى يا با إلهي أرض إنك تجا مركان نبينا عليه السلام مركا لله إلهي معنا وقرقارك بالله صعد إلهي حفاظة إلهي بالله سعوتا ذاتك مسلمين تنمرك لليه إلهي بمعاقا وعادوغاتا إلهي وكو جدا وكو أركا ياي عاصن إلهي تبارك وتعالى إلهي كبق وواذركتين ودنادا قربها اعتمادين ذاتك سيدي النظام كالدولة دو إلى علينا يان سببتهم حاكيني ولا بشي ميل والبعيدا باجوغا أدو أدركين باجوغا ميل والبكاميرا بانا كنت الله واحد سميسون الضوبة سيوغو هول كان هبدا آنكو هايسانا مذاكرة دا كاميرا باكو ركبان جدادكي كاميرا لغو ركبي سوقيدي كاميرا لغو ركبي مولالكا كاميرا لغو ركبي
meel kastoo marta waxa ku rakiba kameradaas laga soo saaraya waxa dambi sameeyay dhan taasoo marka qof walba ka baqaya taasa keenta marka qofku inuu ilaaliyo nidaamka wadankan u yaala walaakiin aawa kamerada ilaahay maxaad uga biqi weyday ilaahay muuna ku arkayn dad baa dhulkan markay yimaadeen gabdha xijaaban baa dhulkan soo galay dharkii bay dhigteen qaarna xijaabkoodii diintoodu way ku sugan yihiin dhalinyarada dhulkan markay yimaadeen iyakuna waxay u maleeyeen jannada inay cagaha la soo galeen waxaad moodaa in la yiri ilaahayni arki maayo halkan inagu arki maayo waxaad doontaan sameeya waxaad doontaan cuno waxaad doontaan fuul in la yiri laakiin waxaanad ogeyn in adiga jirkaaga kamera ay ku jirto laga duubayo waxaad ku hadlayso dhan ilaahay baa quraankiisa ku sheego yiri wa yawma yuhsharu a'daa'u allahi ila an-nar fahum yuz'un hatta idha ma ja'uha shahida 'alayhim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun qalu lima shahidtum 'alayna wa qalu li juludihim lima shahidtum 'alayna قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون إلهي وحو نوغو شيغay في سورة فصلت مالين با soo socota leeyahay magaceega يوم القيامة ومالين با إلهي عز وجل أعداد إلهي كوي أدونك دوشيدا إلهي لعلك أها أعداد إلهي وكوي أرزاقد إلهي انتي عنان إلهي بيدبو عاصنيين إلهي أبو ريمي عابدين مخلوق يكو أي سميستبي عابدين إلهي كما عبسونين مخلوقي كعبسونين نظامك إلهي مي إلالينين نظامك بني آدم كإلالينين شرعك إلهي مي إلالينين قانون بني آدم سميستبي الشرع انتهو أركان أي هذا شرعك إلالي ورياه كإلهي محادو إلالي ودادكو أعداد إلهي وكواس والعياذ بالله إلهي أبورتي مي عابدين مخلوق يكو أي سميستبي عابدين إلهي أرزاقكم مي شكرين بل نعمت إلهي نحريد أي إلهي كل حاسنين ولبا عسيانك مركي السمين أيام واحد مودائن ليري إلهي نأركي ماي واحد دونتان سمايا قارنا واحد مودائن ليري إلهي أفريكا يوكاغا هده هل كان وادولك حرية آيات مدى واحد دونتان سمايا لكن واحد نتقرنين وحر أدوك ما تشوغان أوغو هذا بني آدمك حرية شيغانيا حرية كفان أيام ما يدي مشهد إسكي عليان ما يقبوغ إسكي عليان ما استرسك إسكي عليان ما ماركتاني عريريغا أي كبحان هذا حرية شيغانيا بني آدمك حر ماها من نقول كره حر هذا حرية أي جرتنا هذا حرية أي جرتنا حرية الجنة يتهلا يدونك دوش هذا ما تعالى حرية الجنة يتهلا جنة إلى هيدا حرية قفك بني آدمك جنة والدار قف عليه قفك قلب ونبي يقول أفر بالله بشارين دونا نولل أرض بشدًا بلهين دل يرنمو أجبوا كدم بين عافمات قب أن حنون كدم بين برواقي أرزاقات بيريسا أو أباري ماركتان مصيبة أيضا قداش الإيمانين هل كاب حرية طالع ما شانت كل حد مين بحرية طالع ما شانت كل حد جبوبين إعداد هذا صد وجرك اللي جو جنيو أي حرية أي طالع ما شانت كل حد بكونين ولي جاي الله عافمات كات كواريسو أي حرية أي طالع ما شانت كل حد أباروبين بلايا يفقر يبوس يوحلا أنا أي كوجود عين مر والبرواقات أي كوبيريسو هل كاس حرية أي طالع أدونك دوش هذا حرية ما تعلو أدوية دوش هذا حرية ما تعلو وحين حرية كولن هذا بني آدم كحرش شيئا أيام ما يجيبوا قسي عليان محل جابوا بيان إنك يجوا قوم بدن قاردا أوروبا ينورت أمريكا ووضعنا ده أدونك اللي وش شيئا هرومري ضد كير لسي مركي جابوا بان قاب كي أودي من أنواع أركتان ما لها اللي سكت جينا يلا وحين يو ما أركتاني عنا عين كنا حينن ولا علمه دلائي بصوب بغضا حتى علمه دلائي بنا صوت زيارني سؤبت كوجو أي أوز زيارتان أي الله سميه ماذر ني فازر ني مالنتي هو يدي مالنتي أباها الله سميه على الأقل بلني حصوصتان إن علمها أبي هو يا إلهيان أو أي بغضان بمالمها الله سميه وأنا دتكين ودتك ماركتاني هرمرك ظاهر كأم مغدى قاردنا كأركيسان دتكي سميه أي مرك اللي حدن جر كرو دافان أي اسكت دادنا يقولك الله طوريا أو مركا هرمرك مركا هودن دولكي dadka lagu guumeysanayo waan ka imido dhul xor aan imido waxaan doonaa sameyn oo waxaan doonaan xidhan oo saan doonaan ula dhaqmi ninkayda oo xaaskayga saan doonaan ula dhaqmi oo dhalinyarnimadeeda waqtigayga ka faa'iideysan ha oran waana noqotaa shaabun nasha'a fi ibadati Allah hadaad gabadh aad tahay iyo hadaad in dhalinyaro aad tahay waxaad noqotaa ilmo wiil yar
gabadh yar oo ku barbaartay ilaahay cibaadadiisa ilaahay taacadiisa waana todobada ilaahay u hareyn doona maalinka qiyaamaha ugu kuwaas shaabun nashaa fi taacati illaahi azza wa jalla nin dhalinyaro ah iyo gabadha dhalinyarada ee taacada ilaahay ku barbaartay asturka ku barbaartay iyo wiilka dhalinyarada ee masaajidka iyo dacwada iyo diintiisa ku barbaaray wuxuu noqoni doonaa maalinka qiyaamaha har kale uu san jirin harka ilaahay kuwa la hoos joojiye loogu raaxaya bay noqon doonaan buu rasuulku yidhi allah inaga dhigo kuwaasay noqoni doonaan allah inaga dhigo ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون أعداء إلهي مركا وكواس وكوا إلهي أبورتي أنا عابد مخلوق يكو أي سميستان ببريان وكوا نعمة إلهي أنا كل شكر نعمة إلهي كدح كفرية إلهي كدح عاصية وكوا أدون كدوشي إلهي مركا عاصنيان لا يئن إلهي هل كانوا سكو أركين إسكدا دعية دول حر عياني مدو waxaan doonaan sameeyni waxaan doonaan cuni waxaan doonaan dhageysani waxaan doonaan eegi maxaa ka dambeey doona ma taqaana naarta jahannama loo ururin doona xageeda baa ilaahay yiri ayako malaa'iktu xagga dambe ay ka garaacayso markay yimaadaan banka qiyaamahana waxa maraga ku buuxin doona baa ilaahay yiri maqalkiiba maraga ku buuxin doona waa kamera kugu rakiban maqalku hadle aragu uu hadle harigan jirkan uu hadli doona jirku muxuu sheegi doonaa waxaad ku barbaarisay ku naaxisay ma xalaal ba mise waa xaraan hariga ayaa sheegi doona waxaad cunaysay ma xalaal buu ahaa ma dariiq xalaal ayay kugu soo gashay arsaaqadu mise xaraan bay kugu soo gashay jirka warami doona ugu waxaad ilmahaaga ku korisay ma xalaal buu ahaa mise xaraan jirka warami doona si lacag aad u qaadato haddaan ninkaaga ka dhaadhicisoo tiri hayla gelina maqsin gooniya gal oo aqal gooniya deg oo aan isla nool lahay dadkan masaakiintana aad kaga qaadanaysay ubadka waxa iga dhala saaxiibkay da ilaahay kama maqna meesha waa joogay ugu wana ku arkay wana ku maqlayaa inaad rizqi ilaahay ku qaybiyo ku qadaray inaad been iyo khiyaano aad ku dalbataa oo diintaada iyo dhaqankaagi wanaagsanaa aad ku jabisaa ilaahay waa u jeeda annaasu niyaamun wa idha ma tuntabahu dadku maanta way jiifaan way hurdaan markay dhintaan bay hurdada ka kacayaan baa la yiri dadku waa hurdaan maanta noloshan dhan baa laga cabiray hurdo goorma qofku kacaya waa markuu dhinto rabbi irji'uuni ilaahu dib ii celi oo maxaad soo qaban hadii lagu celin lahaa la'alli a'malu salihan fima tarakt adduunyadii aan ka imiday ayaa ku soo shaqaysan oo maxaad soo qaban lahayd fa ashadaqa wa akum min as-salihin wa sadaqadaysan wa ku soo rumayni wa ku sadaqi sadaqadan la soo bixi amarkaagana waa rumayn zakadaan bixini adigana waa ku adaaci saalixiinta ka mid noqon run baan sheegi been waan iska ilaalin dhaqanka wanaagsan ma soo raaci yaa rabbi dib ii celi kallaa innahaa kalimatun huwa qaa'iluhaa wa min waraa'ihim barzakhun ilaa yawma yub'athuuna baa ilaahay yidhi kelmaddaa waa iskaga hadlay uune kelmaddaa uu iskaga hadlay walow rudduu lacaaduu limaa nuhuu canhu wa innahum lakaadibuuna waaka ilaahay ku lahaa fi suurati al-an'aam waa beentood baa ilaahay been bay sheegayaan haddii adduunka lagu soo celin lahaana halkii umay macsiyada ka miisi lahaayeen meel loo noqonayaa ma jirto u sheeg noloshaasi waa laga yimid oo la xidhay baa la oranaya albaabka u xidhmay hadeetoon cid adduunka ku soo noqotay ma maqasheen cid adduunka lagu soo celiyay haddii mar laga baxo laguma soo noqon karo maalinka qiyaamaha marka qofkan waxa ka warrami doona jirkiisi ba ka warbixin doona jirkiisi halbadan maqlashibo albaqarniki saal laga heli karo ustay waxsoo noolada ka san naqo bay zamanadan horumarka la sheegtaa ka hadlaya quraanku uu sheegay qisas fara badan uu sheegay quraanku jirki maqalki aragi اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون أفقى أياك قبنا با إلى هيري قعمه جي اللقوه جي مرقا كبو حدونا با إلى هيري وحد دوك دوش يدكوسو سميين هل كانوا بحسن دونا معناتها كورما ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه مدينك إنك مدى مجرو هدو سجربوا نبي قول يا رب جيب الله هل دونا ليس بينه وبينه ترجمان إلهي أدونك عدو وكلا أفعلين إنسان ما جرتبوا رسولك يدي واحد ترجمان أدونك يا رب أولا حين يا مجرو
لغة اللغة هلا يا لغة القرآن ويان فينظر أيمن منه بالنبي يقول مركز وقفك حاجة مدق بواجي وحي عمل كسو الريب وأركي دونا حاجة بدح بواجي دونا وحي كسو الريب وأركي دونا عمل كاجيبه حاجة بدح يلا حاجة هرو أجي دونا نار جهنم وأركي دونا ورسولك يقول واحد لا أركي ما يقف مدق تو أجي وعملك بدح تو أجي وعملك أو قبيلك مجران أو أوبتك أجي مجران أوبتك عند قالك هلا بحسنا يا أوبتك أيان قاجدك هلا بحسنا يا أوبتك أيان تعلين لعنتك هلا بحسنا يا أفريقيا ووطن الصبولة مستقبل أوبتك أيان لسه يا لا سو أرد يا الكتب بس أين وضعت هذه النعمة لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يفصل بينكم يوم القيامة والله بما تعملون بصير لن تنفعكم أرحامكم رحم كاد كسو جيد وحكو تري مايو أولادي أتكو تبعيسن وحبكو تري مايسو مالك قيامها والله كلا بحين دونابا إلى هيري وعد دوك دوشي دكو سمين سنة إلى هوا أركاي قرآن قصدا شيء قايا ما اللوغة بحسن يا مجرد إلهي محكمة ديسة قعنتي با والرمي أولوكتي با والرمي أولوكي با والرمي ميدك تاديك تعمل كاقي با كوري الله خير يا شر بدح هذا يكتوحي عمل كاسو الريبة هل كان كوري الله خير يا شر هرت هذا يكتن نارتي جهنم كهرت الله فاتقوا النار ولو بشق التمر بالنبي قيلي فاتقوا النار قاشان كي يشبوا النبي قيلي ولو بشق التمر بالنبي قيلي جيح تمرة قال صدقوا بحسان الله كي يلبوا رسول قيلي ولا ليال مالك هسا إن سوق يكون لجين محان إلهي الله ارتقنا مركز الحمد لله إن قدر المسلمين أيان نحي وإسلام ماذا إلهي بأنه يقول نعميي وأنا نعمة دوينة إنك إنه خاصك إعداد بدن المسلمين تمانت أي قدر الله يهين نعمة الإيمان والإسلام ونعمة خاصة ضد خاصة إلهي أوصية ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام أيالها أدوية إلهي كوجعل يحين أوصية كون جعلنا أوصية لكن دينته إلهي مصيو إلا قفوا إلهي جعل يحين مويانه إلهي بأن جعل هذا مركو إلهي مسلم كادقي إلهي باكو جعل إن دينته هذا إسلام كأد كفانتو وإسلام ماذا هذا أد كل نغنتو وإسلام ماذا هذا كسقناتو وإسلام ماذا هذا نعمة هذا أركتو أي الله بهني هاي أود نقطو قف إن دير جرتو مال دير وحكا أركايا ذاتك أركت ذا قابل لها النقن هكا فكرنا الدوية الكلية بس نحن كسنا سدان ولا داي وعاد كفر كرتا مستقبل كأنه هل كان ما هنا مستقبل كأنه وآخره آخرين تكون حساب تنتا أيا لقى دونيا هذه إلهي حقد في عن لي لتا وبدك أنا حقد في عن إلهي إلا يشان حاسك إلهي حقد في عن لي لتا خاصة ماشان عن مني وودن ندن عن مني ذاتك جوجا اسكو مدى منهن اسكو اللغة منهن اسكو لغة منهن اسكو عقيدة منهن اسكو عملنا منهن وحانا هناك ضد المسلمين أيان نحي دين دين وإسلام أفكار لغة وصومالي مدى كانوا وحوين وأسمر ومارين لغة وصومالي دقن كانوا ودقن إسلام وياه إلهي بنعمة داين نسي إنك سيدين مركان نعمتها إلهي نسي أكو إلى الشنة وعنوبا هنا رقيا هوين با إن المركة الرئيس إلهي النعمة دا أقوم هذينو ونمر والبدينتين إسلام كان اسكو دي رجل إن الدينتين أكو سبنانو نبي الله يعقوب عليه السلام أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي نبي يعقوب عليه السلام إن مدي سمرك ولا دردار ما يي وأمرك السكرات وهي ويان وحو كيري أنا قد بدي محاد عبود سنبل إيش هيجا مركز سيد هذا نعبد إلهك وحن عبدنا إلهك أذيك إلهك نعبدنا الله كصادرتي أيان عبدنا وإله آبائك آبياشا إلهي أياك نصادرتي من عبدنا إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا إلها سنوى متكليا ونحن له مسلمون أنكنا الله أمانوه قاسنه عبادة إلها نقو أقو بيكون هذا المركز أفرتن سنو أيو إلا كنت سنو عبد كيس التربيدين يي ونقنك وناسا كو تربيدين يي وعقيدة وناسا كو تربيدين يي سكرات كنا وحو كلا دردار ميا إن ما ركتان إلهي حريقي سايق بصدا كما يفكرين عبدكوغو ما ركتان إن علوش أبو حيانه بل وحي كفكرين إن ما ركتان عبدكوغو إيمانك أخلاق وناسا كو تربيدين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أي فاطمة كنت ربا ليدي مالين مالمها كمدا فرحيga eeg bay ku tiri waa ka gacmii way adkaadeen oo gacmuhu maxay ku adkaadeen
burka marka ay labada dhagax ay ku ridqaysa gacanteedii ku wareejinaysay farihii baa dhagax noqday biyaha markay soo dhaaminaysana dhabarkeeda ku soo qaadaysay dabkana gacanteeda ayay ku hurinaysay darkana gacanteeda ku dhaqaysay marka Ali ibn Abi Talib baa ku yiri waa markii nabigeena kaleey salaatu wasalaam Khaybara inta saxaabadu ay ku duuleen dadkii iyo dhaqaalihii Khaybara laga soo qaaday ayaa marka ayaa nabiga loo keenay marka uu nabigu saxaabada u qaybinaya marka Ali baa ku yiri aabo dhaqaale fara badan baa u soo heeday dawladda islaamka u tago waxaan masaarif ka dhiganaa nooga soo qaad dadkii la soo qafaashayna muslimiinta loo qaybinayo waa dooma laga dhiganayaa cid inoo shaqayso adoon ka dhigana nooga soo qaad buu ku yiri markaas ay u timid nabiga kaleey salaam nabigu saxaabadiisa dhex jooga marka uu nabigu saxaabadii ku yiri intaydii Faatuma ay timid iga durqa buu ku yiri iga banaya sidoo nabigu u jeclaa gabadhiisa eega awlaada in la jeclaado waa min ad-diin weeyaan markaasay dhagtay ugu sheegtay markaa uu ana ku iman doonee si socod ku iska sii socod guriga ku sii noqon markaasay soo noqotay habeenkii markay iyadii Ali qadifadii hoosta ay ka wada galeen Madiinatul Munawwarana waa qabow ayuu nabigu u soo qasday baa leeyahay markaa waxay ku indhaha ku kala qaadeen labadoodii nabigu kor taagan sallallahu alayhi wasallam markaas Ali uu xishooday loo sadogiye markaa uu nabigu ala rislikum halkii naaska ahaado jiifa xaga madaxu markaa nabigu ka fadhiisto wuxuu ku yiri inaan dhaqaale in siiyo oo baytul maalka dhaqaale inaga siiyo iyo dadka la soo qaaday ee la noo keenay muslimiinta aanu qaybinaya adoomaha noo noqonaya inaan cid inaga siiyo inii adeegta wax inaga khayr badan baan inii hayaa buu nabigu ku yiri adkaartan tasbiixaadkan la yiraahdo tasbiixatu Faatimiya la yiraahdo tasbiixaad Faatimiya la yiraahdo buu nabigu siiyay habeenka markaad jiifanaysaan ee gogoshiina aad kor timaadaan waxaad tirahdaan 33 jeer subhanallah dhahada 33 jeer alxamdulillah dhahada 34 goor Allahu akbar dhahada Ali ibn Abi Talib wuxuu yiri wallahi nolosheeda intaan ku noolaa adkaarta oo maalinta nabigu aniga Faatuma uu nasiyay wallahi waligay igama tagin oo ma iloobin buu ka yiri marka ninka u shaqeynaya Iraaqiga ahaa ee Ali u khidmeynaya ku yiri maalintii dagaalka adiga Muawiya dagaalku dhex marayna adkaarta ma xasuusnay Allah ayna soo hadayay buu reer Iraaqow sharkiina Allah na garamariye walow maalinka aan dagaalamayeen buu yiri adkaarta nabi Maxamed oo maalinka aniga Faatuma uu nasiyay dagaalka maalinta dhacay walow maalinta dagaalka uu dhacayna man halmaamin oo iloobin buu ka yiri adduunyada masi nabigu reerkiisa iyo qoyskiisa wuxuu siiyay amalka jirkooguna ku nasanayo ku raaxaysanayo laana adkaartu daalkana way beenaysaa walwalkana way beenaysaa ajarna waa lagaaga qoraya xanuunada maanta dadka ku dhaca zamankan jooga u badanna waa cibaado yarida waa dhikri la'aanta waa istighfar la'aanta waa u soo noqoshada ay Ilaahay u soo noqoni waayeen darteed ayaa xanuunadan walwalkii walaahowga leeyahay wal bahaarka leeyahay ayaa maanta umada ku habsaday xanuunka dawadiisuna waa Ilaahay dhikrigiisa alladina aamanu wa tadma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillah tadma'innu alqulub Ilaahay baa yiri kuwa Ilaahay rasuulka rumeeyay qulubtoodu waxay ku xasilaysaa waa Ilaahay dhikrigiisa taacadiisa ala baraaruga baa Ilaahay yiri qalbiga bini'aadamku ma xasilo illa Ilaahay xusbiisa uu ku xasilayo ogaada nabigu kaleey salaam adkaarta buu siiyay saxaabadiisii inantiisa Faatuma adkaarta buu nabigu siiyay bimaana waa maxay adduunyada reerkiisa nabigu waa ka ilaalinayay diinta iyo cibaadada Ilaahay u dhaweynayso nabigu ummadiisa u qaaday ogow bal aqaladi nabi Maxamed kaleey salaam adduunya laga ma helin aakhira laga helayay Aisha radiyallahu anha waa tiri gabadh miskiinada ay timidoo laba hablood sidata markaas ay iga dalabtay inaan cunto aan siiyo saddex xabo timir ayaan aqalka uga helo siiyay tiri markaas aan u fiirsado waan eegay laba timir labadii hablood bay u kala dhiibtay xabadii saddexaad markay siraaduha cuntidna waxay yiraahdeen hooyo xabada anakana nasiib mar labaad noogu celi xabadana noo kala jeex intay kala jeexday bay labadoodii kala siisay hooyada naxariisteeda baleega markaas Aisha radiyallahu anha waxay tiri arrinkaasaan la yaabay dadna markuu nabigu yimid baan u sheegay kaleey salaatu wasalaam markaa uu nabigu yiri intaas jannada ku gashay buu rasuulku yiri xabada timirtay labadeeda hablood ay u dhaaftay u kala jeexday ayay jannada ku mutaysatay oo fi riwaayatin ama naartiba lagaga xoreeyay buu rasuulku yiri